dhawaan ayay ahayd markii shirweynaha dhalinyarada Jubbaland uga furmay degmada Doolow ee gobolka Gedo oo lagu gurfaynayay sida dhalinyaradu door uga qaadan karaan hannaanka geedi socodka iyo horumarka isla markaana ka qayb qaadan karaan hawlaha dib u dhiska dawladnimo sidoo kalena lagu dhiirigeliyay dhalinyarada sidii ay kaga tanaasuli lahaayeen kala qaybsanaanta qabyaaladda dilootay qulubta Soomaalida taa oo noqotay caqabada ugu weyn ee la degtay hannaanka dawladnimo iyo in la helo xasilooni siyaasadeed oo ka hana qaada gayiga Soomaaliyeed kasokow kamid noqoshada geedi socodka hannaanka dawladnimo ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa dhankooda waxa baahiyo badan tirsanaya dhalinyarada taa ay sabab uga dhigayaan sida ay dawladda dhankeeda uga gaabisay ka warhaynta arrimaha dhalinyarada iyo dhageysiga baahiyaha gaarka ee ay qabaan sidoo kale mar ay wax ka taabteen baahida ugu badan markii laga yimaado fursadaha shaqo la'aaneed oo ka jira guud ahaan dalka ayaa haddana waxa ay sheegeen inay jiraan baahi dhanka isboortiga oo kaalin mug leh ka qaata jiritaanka iyo nagaashaha dhalinyarada iyo in ay isaga dhawaadaan bulshada inteeda kale kulankan dhalinyarada ee ka qabsoomay degmada Doolow oo ay ka qayb galayeen xubno matalaya dhammaan degmooyinka gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa la isku dhaafsanayay baahiyaha dhalinyarada deegaanada ay ka kala yimaadeen degmada Elwaq oo ah degmada ugu adeega yar degmooyinka gobolka Gedo ayaa waxa ka socda gudoomiyaha dhalinyarada degmada Elwaq Badal Daahir oo ah nin dhalinyaro ah oo marnaba aan ka daalin inuu soo bandhigo arrimaha dhalinyarada ee degmadaas waxaana ka mid ahaa inuu soo bandhigay baahi loo qabay in la helo garoon ay dhalintu isku dhaafsadaan xirfadaha kala duwan ee dhanka sportska si ay uga mid noqdaan ciyaaraha heer gobol degmada ayaa gabi ahaanba lahayn garoonka kubadda cagta iyagoo hadda si kumeel gaar ah ugu ciyaara dhul uu leeyahay shakhsi ka mid ah dadka degmada waxaan leeyahay barnaamijkan aad ayaan u soo dhaweynaynaa waa muhiim wasaaradda dhalinyarada sportskana waxaan dhihi lahaa nabadan waa inay ka shaqeysaa ay geysaa goob walba anigu waxaan ka imaaday degmada Ceelwaq degmadan wax fara badan oo waxay u baahan tahay in laga qabto isdhaxgalka waayo meesha waxa waaye meel oo daraagiska ku batay wacyigelin fara badan ay rabtaa waxaan kaloo u baahanahay dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo baahiya u badan dhalinyarada qabto marka anaga waxaan dhihi lahayn mar walba waa in dhalinyaradaas fursado shaqo abuur la siiyo waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku hawlan soo celinta arrimaha isboortiga ee degmada oo kulan ay shalay ku yeesheen degmada uuna ka qayb qaatay gudoomiyaha dhalinyarada Badal Daahir kadib ka soo noqoshadii shirkii guud ee dhalinyarada ee ka qabsoomayay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammad. Kooxda halgan oo qaaday kaabka degmada Ceelwaq liigii muddo soo socday oo fursad aan u helnay inaan maanta kala qayb qaadano xafladan ee noo yeelan anoo ugu faa'iideysanayo anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Ceelwaq halkan waxaan baaq ugu diray wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha agaasimaha guud ka yahay saaxiibkay Cabdiraxmaan sidaad arkaysaan dhalinyaradan quruxda badan iyo arkaysaan degmada Ceelwaq joogo wax wasaaradda xaggeeda ka imaaday ilaa hadda man waxaan codsanaynaa annagoo oo isla wada jirno maamulkii sportiska macallimiintii xiriirkii gobolka dhammaantanada waxaan leenahay wasaaradda waa inay il kusoo fiirsaa degmada Ceelwaq sportiskeeda fariintan waxaan filayaa mar horan inaan gudbiyay haddana waa gudbinayaa mar walbana waa gudbinayaa Ceelwaq waxay ka mid tahay gobolada Gedo qaasatan xuduudka leh Kenya ilaa haddana wasaarad noo imaado oo xiriirka kubadda cagta ka socoto tu dhalinyarada ka socoto ma hayno gudoomiyaha golaha dhalinyarada saaxiibkay Cabdihaab gudoomiyaha golaha dhalinyarada gobolka Gedo Mahad Cabdi Guure agaasimaha guud xiriirka kubadda cagta saaxiibkay Suufi fariintii aan Doolow nigu sheeg maanta degmada Ceelwaq aan nigu sheegayaa waxaan filayaa inaad ka soo jawaabi doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo number 1 garoon mala indina ku aragtiin aan rabaa number 2 saaciideyn kala ma aha maaliyada ahaato xaq kala dhaqaalaha ahaato inta uma laakiin codsiga niga codsanayna waxa waaye inaad imaataan degmada imaadaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وليد محمد آدم يعني كورجيتا يوث أوف جدا ريتشو waxaa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala dhamaan dhalinta maaragtay maanta ka soo qayb qaadatay in barnaamijkan
aad iyo aad baan ugu faraxnay annaga kaabkan aad arkaysaan wuxuu soo socday muddo dheer waxaa la tiimkan FC Halgan kaabkan deegaankii degmada Ceelwaq muddo dheer ayuu ka soo socday maantana ayaga ayaa qaatay oo ku guuleystay insha Allah wasaaradda ma aragtay dhalinyarada waxaan u direynaa baaq sidoo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Ceelwaq uu sheegay bedel daahir ciirala waxaan doonaynaa ma aragtay sheegay in ma aragtay garab weyn la siiyo sportska ma aragtay garab laga siiyo xagga dhalinyarada ma aragtay ayaga laftigooda garab weyn laga siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga Mawlid Maxamed Aadan ku bogaadiyo ama ku kordhiyo baahida ka jirta degmada Ceelwaq dhanka sportska aad iyo aad waqti badan baan la soo daaladaynay waxaan haysato oo degmada Ceelwaq xagga sportska ka jirto korolaana ka jirto waxaa kaloo jiro sida maaliyadda iyo kubadaha sida Adidaska ayagana aad bay iskaashigooda u yiriin la meelo xagga ma taageero fiican ma haysano waxaana waxyaa kala duwan ee qaabilsan xagga dhalinyarada especially sida dhanka sportska in ay laga siiyaan taageero buuxdo sida u siiyaan districtka kale oo ka tirsan Gada region marka intaas ayaan kusoo dhowgeynayaa cabashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli gobolka ay ka jiraan loolan doorasho oo lagu wado in ay qabsoonto gabagabada bisha August ee sanadkan oo musharaxiinta u tartamaya xeerarka kala duwan ee maamulka Jubbaland ololahooda siyaasadeed ayaa waxay ku sheegayeen inay wax badan kaga bedeli doonaan baahiyaha dhalinyarada markii laga yimaado kuwa amni